waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo guud ahaan magaalada Muqdisho inaan warbixin gaaban ka siiyo xaaladaha nagu soo fooda leh labada maalin ee soo socoto oo ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dalkeena. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo garowsan muhiimadda ay leedahay isku socodka dhaqan dhaqaale ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyadoo la tixgelinayo xoogsatada ka shaqeysata suuqyada magaalada Muqdisho. waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo ammaanka guud ee dalka xilliga lagu guda jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14 bisha shanaad 2022 abaaro 3 saac habeenimo oo caawa ah waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta dadka mootooyinka kala duwan nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno laga bilaabo 14 bisha shanaad 2022 abaar 3 saac habeenimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta dadka iyo mootooyinka kala duwan ayadoo loogu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16 bisha shanaad 2022 abaaro 12 subaxnimo oo ah maalinka Isniinta subaxii 12 ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. laga bilaabo habeenka Sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta 12 si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan kara afkii. waxaan rabaa sidaas aagood bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan waxaa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliiska Soomaaliyeed ee ah 991 si lagu caawiyo lagu yimaado goobta aad joogto. muddada ay shaqadaasi socoto bulshada Soomaaliyeed oo aan ka codsanayno inay noogu dulqaataan xaaladaha dalkeena uu ku wajahan yahay oo isbedel ah awgiis in ammaankana la sii adkeeyo. waxaan codsanaynaa haddii ay kula soo gudboonaadaan dhibaatooyin kala duwan waxaad la soo xiriiri kartaa nambarka 991 ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. sidoo kale bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka ciidankuna ay muhiimad siiyaan adkeynta sugidda amniga ayagoo waliba sameynaya caawin bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir xilliyada ay wadooyinka xiran yihiin. qof kasto askari ah waxaa lagu amrayaa inuu caawiyo muwaadinka u dhow maadaama isku socodka hakad ku jiro uu ka caawiyo waxyaabaha uu baahan yahay. muwaadin kastana waxaa lagu wargelinayaa haddii uu dareemo xaalad caafimaad xaalad amni daro inuu la xiriiro xarunta booliiska ee ku dhow ama uu la soo xiriiro nambarka gaaban ee 991 ee ay ka jawaabi doonaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo istaanbay ugu jira muddadaas ay wadooyinka xiran yihiin. guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa cid kastoo aragta waxyaabaha amniga lidiga ku ah ee bulshada Soomaaliyeed wax walba amniga dhibaya adigana waa ku dhibayaan qarankana uu dhibaya waxaan ka codsanaynaa inay xarunta booliiska ku dhow ku wargeliyaan ama ay la soo xiriiraan 991 kuna wargeliyaan wixii amniga lidi ku ah. guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa saacadaha soo socda in isku socodka loo fududeyn doono ciidanka nabadgelyada booliiska Soomaaliyeed ciidanka nabadgelyada wadooyinka ciidanka booliiska qaybta guud ahaan qaybaha madax banaan ciidamada fadhiyada madax banaan dhammaantood waxay istaanbay ugu jiraan in la caawiyo bulshada Soomaaliyeed loona adeego xilliyada ay socoto doorashooyinka. waxaan codsanaynaa boqolkiiba bulshada gobolka Banaadir ka codsanaynaa waan ognahay xaaladaha lagu sugan yahay xoogsatada dadka garabka ku xamaasha ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ka raali gelinaynaa muddadaas amniga la sugaayo ee hakadka uu ku jiro isku socodka in lala shaqeeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed la gacan siiyo sidii anagoo wada guuleysanay ammaan ah ay doorashada noogu qabsoomi lahayd
loogana guuleysan lahaa kooxaha nabadiidka ah ee ku hadaaqaya inay dhibaateeyaan ammaanka magaalada muqdisho. waxaan u cadeynayaa ummadda Soomaaliyeed muddada 10 saac ee dhiman in la adeegan karo, suuqyada wixii la rabo laga qaadan karo, ciidanka nabadgelyada wadooyinka, ciidanka qaybta guud, ciidanka heeganka ah ee dabdamiska, dhammaan ambalaasyada heegan la geliyay si loo caawiyo bulshada Soomaaliyeed, hooyooyinka umulaya, hooyooyinka xanuunsan, isbitaaladana lagugu simi doono. fadlan la xiriir 991 booliiska Soomaaliyeed ka caawin doono waxa u baahan tahay. waan mahadsantihiin.